maamulka gobolka Maroodijeex ayaa ka qayb galay xaflad lagu shaacinayay caaqilka cusub ee beesha Jaarso caaqil Abiib Xasan Libaax oo ka mid noqon doona caaqilada gobolka Maroodijeex uguna waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta gobolka Maroodijeex Xamse Ciise Cabdi oo sheegay inay soo dhaweynayaan caaqilka cusub isla markaana rajeynayaan in caaqilku uu kala shaqeyn doono dhinacyada nabadgelyada iyo horumarka ee ka socda gobolka Maroodijeex guddiga beesha oo soo dhaweynaa mar labaad oo soo dhaweynaa insha Allah dingaarkiina soo barasa ku soo xiri doono anagu waxaan ballan qaadayna beesha la shaqeeyo xagga amniga ee kala shaqeeyo meesha u faraha badan laga soo kala waa beesha oo tusaalahan kii hormada ahaa kii jooga inay bilaayeen waxa laga yaabaa shaqada marka guddiga iyo caaqilka waxa sheegayna inaynu arrimaha insha Allah si fiican u shaqeyn doono caaqilka cusub ee beesha Jaarso ee gobolka Maroodijeex Abiib Xasan Libaax ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarinta beeshiisa isla markaasina gobolka Maroodijeex kala shaqeyn doono dhinaca nabadgelyada iyo horumarka waxa uu intaasi ku daray inay haboon tahay in la shaqeeyo abaal wiilka ayaa la idin gaar ahaan barasabka maxamed cali iyo xamse ciise cabdi oo xogayay barasabka waxa la idin hayaa abaal wiil sababtoo ah صدق يا رب السنوات هاي الصومالي حرطة هيدا في عالم كذا أنا خلطات سلام أنا خلطات هذا واحد ودينا وش صور رأينا حولي يمر رجينا مكان هنا نقصنا يبان إنه يعني واسكت هو وإحنا قوة عضينا هنا نسكت هو بنا حي سبعة بل يبقى بس قضني أو يشجع ما شايو علم أوديك ما تصور بالرياضي وشفاء مو عن غير واحد فينا gudoomiye dadaalkii badnaa ma laga sheeg gudoomiye uu inoo lugeeyay hata ay gaarigiisa ka tagay uu inoo lugeeyay inaga dadkeen oo wasiirka sarjooga kaga soo saxay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Maxamed Maxamuud Jeerayar oo ka hadlay xafladan ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan caaqilkan cusub ee ku soo biiray gobolka Maroodijeex waxa uu sheegay in xukuumadda uu hogaaminayo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay tahay xukuumaddii horumarka سيلاي وقام ودولة هرمر يعني ودولة عنصرية لا تقالتي واتي فرتين ولا ترتمو بيوقراتي يعني وقتي مهمني ما عندنا قرك المحور دي قلك سير له هرمر لها قرية قلبات ساسا مدحوي ودي النووية سياسة الدولة دار كشغل نواتها يعني إذن كا إيرهان مدبل عرباتي أيام أنا بقولي أنا بانك قادم قبل عام مركاني المسؤولية شغالة أنا وذا أنا قضية أكون القرية أنقذ السنة أوي ومدلك يدقن أو بلارن أو شرية خير بلد وبلادك شرية خير بلد وهدي بيني كذا يقع حلوقي سنة ويقع حق سنة ومقعد يدخل السيارة كرو يعني حقنا بتقليو حق سياسات حق عن عنصريات دي لا تقالم انه ما قلت وان كان قادمي دولة الموضوع